barnaamijkeena tusaalaha nolosha oo kala socotaan Somali Cable maanta wuxuu ku saabsan yahay waajibaadkeena diiniga ah khaasatan qaybta ku saabsan oo loo yaqaan af Carabiga alwaajibaat alcayniya oo macnihiisu uu yahay waa waajibaad ruux walba inuu sameeyo laga rabo oo waajib ku ah inuu sameeyo macnaheedu waxa weeye fardi kasta oo qaan gaaray oo wax cudura markaas iyo wax dhibaho ka hortaagan uusan jirin inuu sameeyo ayaa laga rabaa oo muslima طبعا waad ogtihiin oo طبعا waxa sal u ah qaybta salka u ah waxa weeye waa qaybta ku saabsan arkaanul islaamka ayaa sal u ah qaybtaas marka arkaanul islaamka ah waxa laga rabaa sida soo socota waad ogtihiin dabcan islaamka waa lagu dhashaa isagoo ruux weyn wuu soo gali karaa isagoo caruur wuu soo gali karaa waa lagu dhashaa marka shahaadada ayaana kow ka ah salaada iyo soonka iyo xajka iyo zakaduna waa arkaanul islaamka marka qaybta marka loo yimaado waajibaadka laga rabo ruux walba wax ugu soo horeeya taas ayaa ugu soo horeysa taas macnaheedu waxa weeye haddii saas loo fiiriyo arkaantaas ruuxii intaa waa inuu horta rumeeyo lana yimaado marka waa tiirarka lagu dhisay islaamkeena meesha ugu weyn waa meeshaas waaye طبعا waxaa jira wax kale oo weheliyaa jira siday ugu soo horeysa طبعا qoyska waajibka ruuxa ka saaran hadduu yahay waalidka isaga ka sareeya aabayowgii awowyaashii eedo iyo rag iyo dumar iyo kuwa isagu dhalo kor iyo hoos marka laga fiiriyo iyaduna waa waajib ruuxa mararka qaarkood ay keenayso inuu fardu cayn ku yahay oo laga rabo inuu sameeyo labada qaybood baan aad inagu u naqaanaa kolka loo yimaado waajibaadka ruux walba laga rabo waxaa marka aan run ahaan taxanahan maanta aan aad ugu soo qaadaynaa calaaqada ka dhaxaysa ama xiriirka ka dhaxeeya muxuu yahay waajibaadkan iyaga ah iyo danta guud wax ma ka dhaxeeyaan mise waa wax uu ruuxa laga rabo oo isaga uu ku kooban marka loo yimaado dhammaan diinta ilaahay waa isku wada xidhan tahay marka loo yimaado مثلا salaada oo kale oo kolka loo yimaado xagga ruuxda bini aadamku wuxuu ka samaysan yahay ruux iyo jilbu ka samaysan yahay meesha ruuxda marka ugu dhow waa salaada laano ilaahay baad is hortaagaysaa ilaahay baad la hadlaysaa ilaahay baad baryaysaa maanta oo markastoo tukanaysa marka adiga ilaahay baad la hadlaysaa oo munaajaad baa la yidhaahdaa taa iyadaa marka oo meesha ruuxda ugu dhow ah oo la isleeyahay waxay ka fog tahay xagga maadiga ay ka fogta laleeyahay haddana waxaa weeye wax badan oo waxaa ku dhex jira nolosha guud baa ku dhex jira marka loo yimaado meesha ugu horeysa ee kaa soo galaysa danta guud waa maxay haddii aan masjid la helin jumcana lama tukan karo jamaacana lama tukan karo masjidku marka in la dhiso kuma jiro ruux kasta waxa laga rabo kuma jiro haddana maadaama salaadii aysan masjid la-aanba aysan jumcadii iyo jamaacadii la fulin karin waxaa lagu qasbanaaday oo islaamku uu kugu qasbayaa oo waajib kaaga dhigay in masjid la dhiso meesha marka la isugu yimaado marka maxaa ka dhalanaya kii baahnaa waa la ogaan kii jiranaa baa la ogaan kii qariibka aan magaaladan aqoonin baa la ogaan haddii shir degdega loo baahdo dadka xaafadda degan ama meesha degan way isugu imaan karaan marka in badan oo business leh ayaa meesha isku baranaysa in badan oo wax taqaana ayaa meesha isku baranaya arda meesha kusoo tukanaysa oo wax baranaysa waxaasoo dhan marka fiiri waajibaad kale oon isaga ahayn ayuu wataa waxaa ka dhalanaya marka iskaalmaysi aad iyo aad u weyn ayaa ka dhalanaya waxaasoo dhan marka waa meeshii xagga ruuxda iyo cibaadada ugu xoog badnayd oo la islahaa shaqo kuma leh bulshada inteeda kale laakiin haddana waad ujeedaayo sida laisu kaalmaysanayo waad ujeedaa inta aad tukanayso in ilaahay baryayso dadkaad uga ducaynaysaa waxaa weeye ihdina siraat almustaqiim ilaahuna hanuuni dadka oo dhan baad leedahay waxaasoo dhan marka waxay cabiraysaa sida arkaantu ay nolosha inteeda kale ugu xidhan tahay haddii aanu nimaadno soonka oo kale uuba kasii duwan yahay oo nolosha guud buu isagu si toosa u taabanayaayo
markii dadkii xoolaha lahaa ay soomaan oy baahdaan oo miskiinkii isaga ahaa iyo kii xoolaha lahaa la cuntada iska wada daaya waa cadaaladii qayb ka mida oo durbadii waxaa la arkayaa bisha ramadaan inuusan ina dhihi karin anigu madax baan ahay oo soon waajib iguma aha maya faqiirkii iyo kii madaxa iyo kii loohaa intuba way iskula jiraan taasaa marka waxay keentay in si oo dhib yar ilaahay u simay subxaanahu wa tacaala dadkii aqniyada ahaa baahida uu ruuxii xoolaha lahaa marka dareemayo iyo oonka uu dareemayo wuxuu soo xusuusanayaa dadkii aan xoolaba haysaninba oo weligoodba ay dhici karta inay iska baahan yihiin oo noloshooda adag tahay markaasoo xoolihiisa ayuu inuu dadka siiyo marka loogu sadaqo badan yahay oo dadku ay dadka aada u xusuustaan waa bisha ramadaan intaa keliya laguma daynin ee zakaatulfitri mar alle markuu dhammaado si dadka looga farxiyo aan waxba haysanin iyo masaakiinta ayaa haddana zakaatulfitri xoolo fiican marka intaas oo milyuun oo muslimahoo maalintaas afurtay oo ciiddaa ku faraxsan hadduuba ruuxii maaragtay $1 $2 $3 waa lacag aada u weyn marka maalintaas waa maalin bulshada ruuxna uusan baahnayn al asal sidaas waaye sidaasa marka dantii guud arkaantii islaamka ahayd oo la moodaya inay khaas ku tahay ruuxii ayay waxay ugu gudubtay si dhib yar ayay waxay ugu gudubtay waxyaalihii taban taasina waxay yaraynaysaa faqrigana way yaraynaysaa waxay isku soo dhaweynaysaa ta kale bulshada dadkii masaakiinta iyo intii kale inay walaalo yihiin bay tusanaysaa xoolahoodii bay la qaybsadeen gaajadii bay la qaybsadeen walaalo inay yihiin bay sii ogaanayaan taasaa marka waxay keenaysaa diinta islaamku ma kala qaybsano way isku wada xidhan tahay haddii maalan aanu nimaadno zakada iyada waxaa weeye waa baab kale waaye taban zakadu waa maalkiibay toos u taabanaysaa oo xoolahaaga adiga ilaahay markuu kusoo gaadhsiiyo meel zakadu ay waajib kugu tahay markuu alla kusoo gaadhsiiyo waxa weeye 2.2 ayaa iska bixinaysaa geelana sibaa looga bixiyaa adhiga sibaa looga bixiyaa culimadu waxaa way yaqaanaan waxaa weeye 40 neef oo adhaad leedahay waxbaad bixinaysaa geel baad leedahay waxbaad ka bixinaysaa xoolihii baa laysla leeyahay xoolaha marka laysla leeyahay ay zakadu lafdhabar ka tahay waa wax la yaab la waaye xoolaha au soo shaqaysatay waxaa la leeyahay me xoolahan ilaahay baa ku siiyey saa daraaddeed ummadda dhismaheeda iyo hadday tahay masjid la dhiso iyo hadday tahay miskiin wax la siiyo iyo hadday tahay dalka lagu difaaco iyo hadday tahay warshade jaamacaad zakada kulli waa lagu wada bixin karaa ee khaas uma aha dadun in la siiyo khaas uma aha ee danta guud ayaa zakada lagu bixinayaa dhinaca kale saa daraaddeed ayaa haddii zakada dadka muslimiinta intay bixiyaan la habeeyo ruux faqri ana lama arkeen dal aan isku filayna lama arkeen maxaa jira 2.5 ruuxii maanta milyaaraad bay dadka qaarkii ay leeyihiin xoolo ah marka milyaaraad 100 milyuun oo zaka ayaa ka go-aysa saa daraaddeed qaybtaasina waa dareemaysaa bulshadii baahitirkeedii ama dib u dhiska dalka ha ahaato ama miskiin toos wax loo siiya ha ahaato waxaasoo dhan bay sheegaysaa aayadda maaragtay inama sadaqaatu lilfuqaraa aayaddaas waxaasoo dhan bay sheegaysaa waa meel dhammaan marka dadka oo dhan ay ka faa'iidaysan karaan danta guudna laga fulin karo saasee marka lafdhabar waxay ugu tahay dhaqaalaha dhismihiisa waxay baabi'inaysaa faqriga oo dhan bay baabi'inaysaa oo saaxada muslimka ay ka baabi'inaysaa haddii aan fiirino tajribada ay Malaysia u leedahay barnaamijkaas waa tajribo aada u weyn oo markii Asiaanku ay burbureen numuurta qolada loo yaqaano 1997 meesha u weyn oo Malaysia nabadgelisay waxay ahayd zakada iyo xajka labadaa rugni ayay 2 sanduuq oo aada u waaweyn u sameeyeen meelaha marka ay kaga adkaadeen dadkii rabay inay dumiyaan dhowrka dal ee ugu waaweynaa Asia ayay ka mid ahayd iyada waxba ma gaarin maxaa jira wax alla waxay u baahnaayeen markay siiyeen dadkii lahaa sharikaadkii reer galbeedka waaweynaa lahaa xoolihii iyagu ay lahaayeen oo zakada iyo ay lafdhabar ka yihiin iyo xajku oo ruux maalintuu dhashana xajka xoolahaas soo galaya in kamida meel loo dhigayaa zakadana waxaa waye meel baa la dhigayaa waxa inta la isku dubariday marka ayaa Malaysia saa lagu nabadgeliyey waa wax haddii marka la habeeyo oo tajribadaas oo kale inagu aan ku dayano oo dowladeenu ay habayso oo dadka iyo dowladdu isla habeeyaan
faqrina halkaas ku baabi'i lahaa wax badanna halkaas ayaa laga takhalusi lahaa. طبعا xajka marka loo yimaado waa shir weyn oo caalami ah oo malaayiin ay isugu imaanayso, dhaqaale weynna run ahaan dadka Maka iyo jooga markii faqriga ahaayeen sadaqada iyaga loo keeni jiray. dalka maanta deganna tijaarada ugu weyn run ahaan waxay ka helaan meeshaas ayay ka helaan, marka waa dhaqaale aad iyo aad u xoog badan, waa iskaalmaysi. laakiin waxaa ka sii weyn isbarashada la isbaranayo oo run ahaan ruux ka soo xajiya uu garanayaa imise ay nafsadiisa xajkaas uu kaga tegay xusuus. yani aad waxaan u xusuustaa markii xajajka marar aan tegay, markii aad mid Pakistan ka yimid oo waxaan isku day jiray annagoo ardaya inaan barano afkooda, inaan ka barano xoogaa aan ka barano si xujayda aan ugu kaalmayna. waxaan baran jirnay afkooda qayb ka mid a. markii aad salaanto xaajiga oo iska dhunsan oo u baahan in la hago, afartaa jumle taqaano ayaad meeshuu rab ku geynaysaa. weligii iyo allihii markuu kaa sheekayn dalkee tahay buu ku dhihi, waad mahadsan tahay, khayr allah ku siiyo. weligii iyo allihii marka kuma halmaamayo, adiguna ma halmaamaysid. saa daraaddeed waxaa weeye waa xusuus xoog badan. macluumaad aadan internetda ka ogaan karin baad xaajiga waxaad ka ogaanaysaa dalka uu ka yimid. arkaantan iyadaa marka danta laga leeyahay ee guud nafta bini aadamka in la tarbiyaa la rabaa. haddii ciidan dagaal la gelinayo waa la tarbeeyaa, haddii ilmo aad dhasho ilmihii waa tarbeynaysaa, haddii ruux sharikad ay qaadato tababar bay gelinaysaa. marka salaadan iyo soonkan iyo xajkan waxaa lagu tababarayaa ruuxdaada inaad istood ilaahay u dhawaato. kow, maalkaaga in lagu baro saad u bixinayso. laba, xubnahaaga iyo sida xajka oo kale waa jihaad weyn oo run ah, ama lagu dhintaaba inaad barato sidaad jihaadka u galaysid. waxoo dhan marka waxaa weeye waa tarbiyo xoog badan oo lagu tarbeynayo. oo waxaa lagu barayaa salaada oo kale maalan waqtiga hurdada ay ugu fiican tahay baa lagu kicinayaa. adoo daalan baad tukanaysaa, adoo qabays markaa rabin baad qabaysanaysaa, adoo dhici karta biyo qabow ay dadka qaarkii ay ku qabaysanayaan ay isticmaalayaan. waxaa lagu barayaa si dhible inaad mararka qaarkood aad hawl u qabsan karto. 5 martuka maalintii baa lagu yidhi. waxaa weeye marka waxaa lagu bari ballamaha si aad u ilaaliso, sidaad ummadda ula dhaqmi lahayd adiga lagu barayaa. waxaa lagu barayaa sidaadan u goyn lahayd. maxaa jira in lagu yidhahdo salaada subaxka oo casarkaa tuko oo waqti lagu siiyo, waxay ku baraysaa ballamaha si aad u ilaaliso iyo sida aad hawshaa laguu diray ilaahay kuu diray markaa si fiican u qabato. hawsha kale ee ka sii weyn marka ee mustaqbalka aad aadaysana adigoo ku tababartay baad aadaysaa. dadka marka saa daraaddeed waxay isku khaldaan mararka qaarkood salaadaha iyo cibaadooyinka iyo waajibaadka kale kala qaadaan, ma way isku xidhan yihiin. ruuxii kari waaya maalan inuu tukado, ruuxii kari waaya maalan inuu soomo, hawl weyn uma dirsan kartid. sababtu waa maxay? adiga iyo isaga waxa isu kiin xidhay walaalnimadana isu kaa xidhay. laba ruux oo muslim isa tihiin, hadduuba ka xishooday ama uu diiday intan inuu ka soo baxo, hawsha weyna ilaahay ka rabe ee kale ruuxaasi ma samaynayo. ruuxaan muslim ahayn kama hadlayna, waxaan hadda ka hadlaynaa ruux muslima oo loogu talagalay in la tababaro, oo maalkiisii uu bixiyo, oo jidhkiisii uu ku xajiyo, oo ilaahay uu soo jeedo, oo ilaahay u tukado. saa daraaddeed isagoo tababaran ayaa markaa hadduu tijaaro gelina si xoog layu u yaqaanaa, hadduu dowlad dhisina wuxuu yaqaanaa si wax loo ilaaliyo yaqaanaa, hadduu dagaal gelina wuxuu yaqaanaa si loo galaayo yaqaanaa. islaamku marka wuu isku wada xidhan yahay oo tawxiidka ilaahay iyo salaadaas iyo dhammaan marka la isu geeyo wuu isku wada xidhan yahay. waajibaadka marka cayniga oo ruux walba laga rabo way badan yihiin. kolkii loo yimaado ugu dambaysta caruurtaada inaad koriso waajib bay kugu tahay, yani adaa toos lagaga rabaa. marka caruurtaada iyo ahalkaaga salaada bar baa lagu yidhi oo soonka bar. waa waajibaad haddaad bari weydo adiga in lagu ciqaabo ay suuragal tahay waayo. idan waxaa isku dhisan cibaadadaas arkaanu islaamkaas iyo ilmihii tarbiyadoodii intuba waa waajibaad ruuxii toos looga rabo, oo hadduu fulin waayo wax ka weyn oo laga sugaayo ma laha. ruuxii marka aabihii iyo hooyadii gaba oo duqay ana wax laga sugaayo ma laha. ruux ilmihii tarbiyaysan waayana wax laga sugi ma laha. islaamku marka saas isugu xidhan yahay. marka salaadaa laga soo bilaabo
ilaa ilmaha aad korinayso. arkaantaasi waa arkaanta waa waajibaadka kugu adiga shakhsiga ah ee toos adiga ku taabanaya, waajibaad ummadda kale aad ka sugayso ma aha. ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu ina waafajiyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.